saddexdan magaalo kuma noola wax rag ah. Haddii aad gabari u doonatana waxaad heli doontaa guri, gawaari iyo hanti aad u fara badan. Majazia Dalkazi waxay ku taallaa koonfurta bari ee dalka Poland. Magaaladan ayaa waxaa ugu dambeysay inuu wiil ku dhasho sanadu markay ahayd 2016. Wixii intaa ka dambeeyana waxaa dhalanayay haween oo kaliya. Gabar waliba oo ku nool dalkan waxay aadaa dal kale si ay u hesho nin gayaankeeda ah. Haddii aad fadhigeeda ugu tagtana waxaad heli doontaa hanti fara badan. Magaalada labaad ayaa ah Bangui, waxayna ku taallaa dalka Shiinaha. Haddii aad gabari u doonatana waxaad heli doontaa hanti maguurta ah. Laakiin kaliya laguma ogolaan doono inaad hal gabar guursato ee waxaa waajib ah inaad 3 iyo wax ka badan guursato si aad uga badbaado dacaayada iyo cayda dadka kale kula imaan doonaan sida wax matare iyo wixii la halmaala, ama si aad u hesho hanti aad u fara badan. Magaalada saddexaad waa magaalo noo dhow, waxa ayna u muuqataa in haddaanu Soomaali nahay ay fursad noo ahaan lahayd. Laakiin magaaladan looma ogola qof kaliya oo rag ah inuu soo galo, oo haddii aad soo gashana waxaad mutaysan doontaa in sharci lagu mariyo ama se dil lagu geysto. Magaaladan magaceedu waa Amuja, waxa ayna ku taallaa dalka Kenya. Magaaladan ayaa la sheegaa inay aasaastay haweeney ay isku soo dhaceen ninkeeda. Wixii intaa ka dambeeyana waxaa imaanayay haween la soo furay ama sazaygooda ay soo kala xanaaqeen. Intaasina waxay ahaayeen xog yar oo aan lagu kalsoonaan karin. Fadlan intaan haddaad nala soo gaadhay nagu soo biir oo subscribe noo saar channelkeena Bandarbelela.